axmaaro waa tii dagaalamaysay ee go'doonka ku jirtay wadahadal buu abiye ka dalbaday inuu la furo jabhadihii axmaarada way diideen hadii aan oramada u soo gudbo oramada waa kii bandowga ay ku soo rogtay jabhadii oola kii gaadiidkii ay ku amartay dawladdu inay baxaan gaadiidkii Tigreeg wuxuu yidhi heshiiskii Pretoria lagama soo bixin xasuuqii dadkanaga ku dhacayna meel kuma og hala soo cadeeyo cidii dadkanaga xasuuqday maxkamadna hala hor keeno Abiy Ahmed wuxuu maanta la madlan yahay baarlamaanka Ethiopia baarlamaankii waxa la hor dhigayaa qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay heshiiskii Somaliland iyo Ethiopia ay wada saxiixdeen heshiisku sheegay kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka maanta waxa garabkayga fadhiya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan soo dhaw waan dhawahay waad mahadsantahay Cabdiraxmaan xaaladii Ethiopia aad ay u qasan tahay madaxweynihii Canfarta waa la laayahay jaan iyo cirib meel u dhigay kii dhabuubtu waa iscasilay sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo baarlamaanka horgeyn doona go'aamadii badda ee uu Muuse Biixi ay ka wada hadleen bal soo dhaw arrimahaas maxaad ka waraysaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta Ethiopia way qasan tahay oo dhanna dagaal baa ka socda dhanna maxaan ku dhahay isbedel la waaweyn yaa ka socda hadii aan ka bilaabo axmaaro waa tii dagaalamaysay ee go'doonka ku jirtay wadahadal buu abiye ka dalbaday inuu la furo jabhadihii axmaarada way diideen hadii aan oramada u soo gudbo oramada waa kii bandowga ay ku soo rogtay jabhadii oola kii gaadiidkii ay ku amartay dawladdu inay baxaan gaadiidkii baxayna waa kii la gubay oola way dafirtay anagu maana gubin jabhada kale inay jiraan laga yaabaa bay tiri oo waxa gubayay waa jabhada kale taana halkaas aan ku dhaafayaa Tigreeg hadii aan u gudbo Tigreeg wuxuu yidhi heshiiskii Pretoria lagama soo bixin xasuuqii dadkanaga ku dhacayna meel kuma og hala soo cadeeyo cidii dadkanaga xasuuqday maxkamadna hala hor keeno heshiiskii Pretoria wuxuu u dhaqan gali laayahayna hala naga qanciyo hadii kala go'aan degdeg ah yaan gaaraynaa horta markuu Tigreegina ka booday Abiy Ahmed wuxuu maanta la madlan yahay baarlamaanka Ethiopia baarlamaankii waxa la hor dhigayaa qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay heshiiskii Somaliland iyo Ethiopia ay wada saxiixdeen heshiisku sheegay Abiy waxa xoog ugu soo gaarayaan inuu yiri waan ka fiirsanaynaa sida aan u fulinayno lama garan karo ma khayaano wataa oo Soomaalidu seexinaya ma dhiiqadii uu ku dhaxdhacay buu ku sii socon laayahay ma Xasan Sheekh oo Talyaaniga ku wada hadleen baa wax ay isla soo ogaadeen lama garan karo laakiin Abiy wuxuu yiri heshiiskii waan ka fiirsanaynaa qaabka aan u fulinayno baarlamaankana la horgeeyay heshiiska badda ee lala galay Somaliland ururada mucaaradka ama axmaara ama oromaha ahaadeen dhammaantood way qaadaceen way diideen Soomaali iyo maxaan ku dhahay wixii kale waxa ay sheegtay axmaaradu inuu yahay qaraska tuurnimo inay tahay haligaad la haligayo qaran ku sheegan inta markii hadana la sii dhaafay waxa baxsaday waxa iscasilay madaxweynihii Dhabuub Kilil kaas uu iscasilay in lagu qasbay iscasilaadiisa iyo in isaga ay ka soo go'day lama cadeyn karo laakiin uu baneeyay saaxad Ethiopia inta badan ruuxa iscasilay waa ruux lagu qasbay oo la hadlo la yiri iscasil madaxweynihii Canfarta wuxuu xilkii ku wareejiyay hogaankii nabadgelyada ee deegaanka Canfarta isagana waa baxsaday dagaal baa ku dhaxmaray Addis Ababa xisbiga BB qaybta Canfarta dagaalkaas musuq fara badan iyo gabad fallo iyo waxyaabo fara badan yaa la isugu soo gudbiyay ninka lagu miisayna awal arba iyo ahaa oo ah madaxweynaha Canfarta hogaankii nabadgelyada meesha u dhiibay waan soo cumraysan buu yiri Dubai buu maray Sacuudiga ku xijisiyay cumradiiba muuna ku leexanin Thailand inuu tagay baa la sheegaya wadan uu sii dhaafay halkaasuna wax fara badan
kasoo afufay oo kasoo sheegay ninkaasina wuu ku daayay Ethiopia waxaad moodaa harag sagaaro iga kacmooyin iga durug ma laha la yiri oo inaad ruuxa ka furtagtaa mucaaradadii oo karkaraysa iyo muxaafidiyadii baa saa isu wada mulaaqay run ahaantii lamana dhowran karo saacad bay isu bedeshaa oo war meel intaad kaga tagto aad meel ugu imaan karto malaha waa wax saacad isu bedelaysa hadda newska Ethiopia waka madaxweynaha Canfarta awal arbac bal maxaa sababay inuu baxsaday oo caqabadaha soo wajahay waxay caqabadaha soo wajahay waa xulufaysi Ethiopia iyo waxyaabaheedani group bay isla socdaan groupadiisi baa markaa cadaadis uu kaga hor yimid ka soo horjeeday awal arba muuna iska baxsanin nin siyaasi oo baxsaday weeyaan waxa kale oo sheegaya waxa la wixii maaliyad uu deegaankaasi lahaa miisaaniyad inuu la baxsaday si oo la baxsaday inuu akoon ku shubtay inuu la tagayba waxa la wixii miisaaniyad inuu la cararay wadankana uu ka soo afuftamay dadka qaar waxay leeyihiin waan baa socota lagu soo celinay oo la warda waxa kabka uga sii darin oo soo noqo ay BB-da sare ay waan ay ku haysato laakiin ninkaasi bartaas uu tagay waxa kalifayna waa cadaadis uu ama hunguri ha qaado lacagtan uu hayay inuu la baxsado ha go'aansado oo Ethiopia ha ka rajo go'o laakiin hada aragto wadan madaxdiisii baxsanayso waa u dhamaatay wadanka siyaasadiisa ka tarjumaysa wadan ay madaxdiisii baxsanayso oo kala dusayso wadanka siyaasadiisa ka tarjumaysa Cabdiraxmaan markaan nimaadno dowladda deegaanka Soomaalida isku bedelkii iyo isku shaandhayntii iyo xilka qaadistii la sameeyay maxaa iyada iska bedelay maxaa ka soo cusboonaaday waxa iska bedelay oo ka soo cusboonaaday inaan wax kale oo xil laga qaaday iyo wax dambe oo la beeriyay ayna jirin warqado feegaho la wadaday way ay jiraan oo HRM-kii maxaan ku dhahay masiibooyinka iyo wasiir afaraho dambe in laga qaaday baa la sheegayay laakiin waxay noqotay warqad iska feega warqad runa ma ahayn aad dadku waxay isula dhigayeen xilka qaadistii mubashir bay aad dadku uga dhiideen xabaraha bulshada aad loogu soo qoray qaabka ay shacabku ula haysteen ama u jeclaayeen mubashir oo aynan dadku ka gabanaynin oo mucaarad iyo muxaafidba yar iyo weynba dadku ay ka wada mahad sheeganayeen intii kale xil laga qaaday ruux soo dhigay iyo ruux ka hadlimaan la arkin kuwa la magacaabayna dad waxa hambalyeynaya waan arkay laakiin sida mubashir uu saameyn u lahaa ma aan arkin qof saameyn u leh ma aysana si soconin in maxaan ku dhahay wasiirro kale hadda la magacaabo intaas oo moodaysa in mubashir lagu hagaajinayo bal sameeyay hadda ma taqaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii galabta daawadayaal intaan barnaamijkan kiisa xigay soo noqon doona waxaan kaga tegaynaa anagoo isku duuban sidaas iyo kulanti dambe